بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الأعزاء، waxaan leeyahay culimadii barnaamijka inoo soo qalqaalisay inoo isu keentay gobashan inoo soo waxaysay ilaahay danbiisa khayr Allah kaga jazay awalan khayr Allah kaga jazay intii soo ajiibtay oo u timid diintooda darteena ugu timid ilaahay danbiisa ayagana Allah ka ajirsiiyo dhammaanteena diinteena maslaxadeena iyo xaqi Allah inagu wada toosiyo Allah ina waafajiyo xaq Allah inagu wada toosiyo mas'aladan kullu maqaamin lahu maqaal muhiimadu maanta diinta meelaha ama looga hadlay ama firqooyinkeeda ama dhibaatooyinka haysatay aad bay u fara badan tahay laakiin hadda nuqdada meesha loo yimid waxa weeye arrintan inaga ahaan adduunka kuma cusbo laakiin inaga ahaan inaga cusub waa arrintan khaasatan tashayuca marka arrintaas waan dareensannahay ilaan awal hore geeskan Afrika ama dadkan af Soomaaliga ku hadla firqooyinkan mubtada'ada ah munazah baan ka ahayn waqti dhow way khawaarid lagu soo bilaabatay dhirkoodii waan aragnay haddii la xarbiyey haddii kitaabo la qoray haddii baxdi la galay wax walba haddii la isla maray dhirkoodii dheertoodii la arag la dhadhamin kharaan iyo macaan waxay lahayn waa laga dhargay waxaa haddana soo bilowday qolo kale oo iyada ka soo horjeeda oo gacan midigii gacantii xaamal ay isu yihiin oo ayagana waa markaas kolkay midi qayb tafriid samayso tan kalena ifraad ay samaynayso wa bilcaks tii kale haddii wada markaas ay ifraad samayso tan kalena tafriid ay samaynayso maxaan mar walba ku jiraa laba dhaban baan ku jiraa marka waxaan leeyahay tan hadda cusubna tii hore dhan marka la fiiriyo way inooga dhib badan tahay shaki kuma jiro maxaa yeelay Soomaalidu waxaa ku maamahdaa libaaxa ayaga ka aamusa ka ayaa kuran ka aamusa daran kuwii hore soo cali karim mushrik shirki uu galay tusbax shirki weeyaan markii tusbaxani waa shirka biirada la yaabi waa mala bi qabin kuwani marka waa isaasay soo qarin karaan oo muujisanayaan shacab qaadin jiilay ma maqleen hadda fiicnay laga sheeguuday haade waa caabuday meelay soo qarin karaan kuwani sawaakan lagu leeyahay usuushooda waxaa ka mid ah inay gaashaantaan weligood adkooda gaashaamusho weligood waa libaax wada markaas ku aamusan oo qalabkunkaasiin hayo waxaa kaloo kaaga daran ilaan haddii wada markaas aad cadow is haysaan hadduu cadowgu barbarkaa maro oo maxastaadii iyo ilmahaadii iyo waxay oo dhan aad gadaal marsato oo adow ka soo horjeesatay inaad iska dhacsaay waa qaalib kolkaad marastii iyo maxastii iyo dhammaan raagta dhigatay ood cadowgii la dagaalamayso haddii xagga dambe ilmihii looga soo dhaca ka war eber way dhabatay adigo waa jabtay daraag ujeedadan markaa hadalka macaan usoo qaadanaya waa xaggeen waxaanay kala qaadahayaan qoladani asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlu beytka mid baan jecellahay mid baan cadowtanahay midna suuragal maaha asxaabta nabiga waanu jecellahay ahlu beytka waanu jecellahay annaga ka jecel shakila kuma jiro annaga ka jecel aabbaha iyo hooyadaagu markastaan ku salinayno maxaan dabadhigaynaa allahuma salli wasallim calaa sayidina maxamed wacala aalihi wa asxaabihi samari marol saasaan mar walba ayagiinaguna ducaynaynaa nabiga nabigana calayhi salaatu wasalaam u raacinaynaa waanu u jecellahay sida imaamuna shaaficiyiba ugu kulmiyey asagoo shacada culimadu maanta dhan ilaan intuu sheekh culimaa uu maray inaad ka dabamarta ma ah waaba la isu baraarujiyeen raggan rawaafidada iyo balaayada laydinka digahay maanta la sheegahay imaam shaafici asagoo ka digay oo yidhi bal ahlu awaha iyo ahlu baatilka dadka ugu been badan waa rawaafidada shacada u yidhi haddana ahlu beytka markuu nabigu calayhi salaatu nabiga ahlu beytkiisa korku ammaanhay awliyaa ahla beyti rasuulillahi xubbukum فرض من الله في القرآن أنزله يفيكم من عظيم القدر أنكم
من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وهل يقول كيس القديم كان إمام الشافعي هذا اللي يهدو كل كسائي هاي إمام الشافعي الله رافض ونظر لا إيه البيت وحاج درسنا لها هو جواب مكة. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد ثقلان أني رافضي. لما ما وصمدي دلان نكيل البيت لجعل الرافض ويقالنا وقال ويقول كرافض وانا هذا بعد ساعة ما معها أهل البيت وجعلان صحابة الله جعلان وضل أيوب إيمان هيين بالمري علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أهل البيت ودنيك وقامي أمر يوسع ما أسمهم حسني صوتي حتى لا يسر شيئين هاي وقول أمر يكحد قدبي وطبق كلمة ولا البخاري حتى إنه قول ضامنها وقول البخاري كعبد الله وعبد الله عباس تمنها يا حتى أهلها أنا وعلي بن أبي طالب وأندري لها مويه ما أنا قبل وعلي ما دون كل شيء وارنتي ولكن أسيس علي بصاير له وفي هذا معاه سوريا هاي ماشى تفضيل كصحابة أو شيخين يا عثمان يا الأخر مرين هايو سي أهل وجوز عندهم مدة أسيم حسني مسألة بعد مركز أهل السنة والجماعة اتفاق كليين وإنت بدن لغوا كتشي على مدرجوه ويا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخينك ويا مركز إن أما سيد علي لغفر له أو من هي بعد مركز أيجي لتنقيسي أهين هو سوق يصير علي قاعدة الاستعمار وأهل السنة والجماعة استعمال النكد يلي هذا الكوراع سيدنا علي أبي طالب ولما متواتر بوسمع تالي حتى أحد ما نكم مسجد كوفة أسوي خطبة أخرى يكون جلدي أسقى محيري أو مكويري محيري ومكة سيدنا علي أسوي ومنبر كنت أغن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر أسيء منبر كنت أغنوها وحوينا تقول في مجرى بعضكم في صلب أسيء سعالي كلا وكل سعالي وانجع الإسلام وكلا ولا دعاي وأبو بكر بعد دعاي وكلا بعد دعاي أسيء سعالي هذا وسلام له أسيء أبو مكي وجدي صور السنة وبين كل ما إمام ذهب وقرآن هيا سيروا على من نبرة كل هو جزء لا ودوس وقرآن هي والله العظيم غور كان الإمام سيدنا علي لا هيبي محاي أو متواتر هي محاي بالمشي وجدي وحبينا تدخل على أندير فيرو بخاري من وقتهم يا واي مسلمين يسوس عليهم إنه هذا مكاس محمد بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنه هذا مكاس أبي ودي أبو واي مكاس ومدن وضياء مكا وقفة دبا هاي مكا مفجري أبو بكر هذا يا أبو حلوي وهو يجلس فيها أبي وحنا كنا عليه هاي أبو حلوي هذا ولا عمر باكو حي وحكي يا أبي بخاري واسوسه ونهاي إنه عثمان ياهل ثم أنت عثمان سيدنا علي محمد جواب أبو أنا ويتجل وفرق كم يضم بانا حيث بس يعرف فيه والمحاضرة قصر إخوة العزة محاضرة يبان البسكولة يعني أهل البيت بلد أي هي صحابتي كان الواحد قلبي سورة كلمة الله وضع سيما كل مكان ما كان إخوة العزة وقت وحلة فاطاه لما جوبه عقيدة أهل السنة والجماعة محايطة هي إن أهل البيت كجعلها بقولك وبقول إن صحابة الرسول كلمات وأن جعلها هل صحابينا ندور كده صحابي من مصنعتين هل صحابينا ندور كده كسو قابسو معناها هل كصحابي أو قوة يعني أنت بدرسوا القائد يا سيدي معاوية وعمرنا عبد النجري إمامنا الشافعي عمر بن عبد العزيز رجي سلفة إجلالا إمامنا وحي قالين تلك دماء طهر الله أيدينا من منها فلا نروض بها ألسنتنا عربان نقول كل منه هذا كاين السنية سلاكو كابسو شيعي وكذا كدي تونو هذا كدي المهنة سكدينو أهل السنة والجماعة هذا تاي يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام كدي وفد أبو بكر يا كحل عمر يا كحل عثمان يسير علي وأهل السنة ويكون يترجمين جمهور الرئيس عثمان سيد خلافة بكر الرئيس يا كحل سيد علي سيد الله صحابة كرام بعد مركز كدي من الراعي وحلا نكل فديك إلهي بابا لهبة وكل فديها هي
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا صحابة لم كلا فدركوا ما سمعين وقان كابد إنكلبة وكاهر ينصر شيعي وكذا كديتونو هذا كلمة المهنة عن سكر سورة قلمة ما في إن شاء الله تعالى وقت عيدا رمالي بارك الله فيكم ولما جوت وحنا إنه دادي سي إنه أنا سيدادي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الأعزاء وحا إنه سوى قبقبوي وسيئات وناكسن وأقيم الضلان وأقايا إنه سوى قبقبوي شركي لغاها لهاي أرمها الدين وليبا خاصة كسابسنا أرنتن عصب أو صومالي أو عصب أو خاصة شيعة ما تنشيها هي إن نسوق الشيء وعلماء دي ماشى تميت لمان البيت يا أشراف إيوه وحي أهل السنة والجماعة علماء ودمدن جو اسمه جميل أي هل بيان أي كسر وصارين inay uga digaan bulshadooda waajibka saarana ay gutaan bidcooyinka dhammaan kuwii hore u sii jiray iyo kuwa cusub oo hadda la sheegayo oo shacabka nugu cusub oo yimid intaba in bulshada looga digo laguna dagmin ilaahay intii waajibka diiniga hana la guto bulshaduna ay ku far adeegto diintoodii hore ay haysteen taasa marka shirku inta lagu soo gabagabay oo noocadaynayna إسلام كوران أهل السنة والجماعة ميل جوجبا ذلك أفكارنا قرن هيو صومالي ميل جوجبا وقنا دينا إن أفكار تافوشهم أكيد دكتورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.